hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay haweeney lagu eedeeyay inay la shaqeynaysay horjoogayaasha sare ee maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. warbixin arinta la xiriirta waxa inoo faahfaahinaya wariyeena Sugaal Macalin Maxamuud. Leyla Cumar Baaruud waa xaaska horjooga ajnabi ah oo dhalashadiisu tahay Ethiopian. ciidamada sirdoonka Soomaaliya ayaa ku raad joogay muddo 5 bilood ah oo ay ku dhumaaleysanaysay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada dalka. Leyla ayaa kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab u qaabilsaneyd tashkiilinta iyo marin habaabinta caruurta. sirdoonka Soomaaliya ayaa waa berigii maanta Leyla ku qabtay degmada Cabdilcasiis xilli ay doonaysay inay gurigeeda hortiisa ay gaari ka raacdo. Leyla Cumar Baaruud oo ah hooyo 2 caruur leh waxay u muuqataa inay ku maashowday marin habaabinta kooxda Shabaab oo sida ay sheegtay ku tashkiilinayay fikradahooda muddo 7 sano ah, taas oo dhaxal siisay inay ku fogaato aragtida qalafsan ee kooxda sida ka muuqata waraysi ay bixinaysay. waxayna ku haminaysaa in ay disho nafteeda isla markaasna marato dad badan oo muslimiin ah. waxayna tusaale u tahay Leyla heerka ay Shabaabku gaarsiiyeen dad badan oo ay uga faa'iideysteen aqoon yarida diineed oo haysatay ilaa ay u bedeleen kuwa xambaarsan aragti khilaafsan shareecada Islaamka ayagoo isla saxan waliba. anigu qof muslim in la dilo kuma baaqayo, mana ogolin in la dilo. muslimiinta in la dilana waa xaraam, dhiigooda iyo maalkooda ma banaano. qof muslim in la dilo kuma baaqayo. haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka, laakiin laygama gudbinayo, idaacada lagama soo daynayo, waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn. warkaas in laga jarayaa mise waa ka jaraysiin ya dawladda ha la dilo, madaxweynaha ha la dilo, ra'iisul wasaaraha ha la dilo, baarlamaanka ha la dilo, wasaarada ha la dilo. haddaan dhaho hayga goynin alahaasaan ku baaqaa. haweeneydan ayaa si indhala'aan ah ugu jirtay safar ay ku baadigoobaysay saygeeda oo ah nin ajnabi ah oo lagu sheegay degmada Jilib sida ka muuqata hadalkeeda. hadda marwo ayaa tahay saasaan filaa insha Allah. markii lagu soo qabanayo maxaa sameynaysaa? gurigeyga joogay. maadaama marwo aad tahay xaaskii u dhaxaysay ya xaaskii u dhaxaysay xagee ku sugayay? ma og meel uu ku sugan yahay. Soomaali miya mise waa ajnabi? Soomaali maahan, laakiin waa muslim mujaahid. muslimada ka shaqeeya dhalashadiisa wadanka ku soo jeeda. wallahi warkiisa anigu waxaan sheegay malaha, laakiin waraad qaadiina rabtiin waa Ethiopian sida la sheegay. anigana oo ii sheegay, laakiin ragaas waxay sheegaan wax la qaato malahan. xeeladooda military kamid ma inay iska sheegaan qabiilkooda iyo magacooda saddexan oo sax ah, laakiin waa Ethiopian. ya Soomaali waa soo islaam, waa nin muslim oo muhaajira. Jilib baa u socday. maxaa ka doonaysaa Jilib? ninkayga u socday oo halkaa jooga meel uu joogo ma ogi, laakiin markaa tago ii imaan lahaa. marin habaabinta Leyla waxaad ka dheehanaysaa fikirka ay ka aaminsan tahay qaraxyada naftii halignimada ah ee ay Al-Shabaab ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. waxa uga gambahanahay waxay tahay nin mu'min ma badilaya anigu. mu'miniin ma ahan dawladda ridada, daaqoodku ma ahan kufaar baan ka aaminsanahay. say mu'min ku noqonaa marka qofka mu'min markuu yaad ka aamini kartaa inaad disho ay dhigiisu xaraan ka tahay, laakiin naftiisa iyo maalkiisa ay banaaba sa aaminsana anigu. baab qarax ina ka fadwado daa ugu qasabtana waxa ku waajibay dadkaas inay ka hijroodaan. haday ka hijroo waayaanna Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta yawm al-qiyaama asaga la soo saarayo waxay la dhintaan. kooxda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa hadiyo gooraale fashiliya sidan oo kaleeto dad badan oo fikradaha qalafsan Al-Shabaab ay ku marin habaabiyeen, kuwa oo doonaya in ay dhibaateeyaan dad badan oo shacab Soomaaliyeed ah. Sugaal Macalin Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.